Nabaday daawadayaal ku soo dhawaada niyad samiya kalgacayl. Maanta waxaan soo jeedin doonaa muuqaal ka duwan muuqaaladeena hore oo ku saabsan maxay raggu ugu badan yihiin istiilka. Waxa ii soo jeedin doonaa aniga oo Maxamed Aadan. Qodobada aynu ku qaada dhigi doono waxaa ka mid ah maxay tahay sababta raggu ay ugu badan yihiin inay istiilaan. Wadamada USA, Australia, Kenya, Ethiopia, Argentina, Soomaaliya yaa ku badan ragga iyo dumarka istiilka. Maxaa lagu xalin karaa in laga hortago istiilka? Haddaynu u galno warbixinteena, dadku waxay aaminsan yihiin qofku inuu istilo inay sanadkiiba mar ku dhalato, balse xaqiiqdu sidaas way ka duwan tahay. Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO warbixin ay soo saartay waxay ku sheegaysaa 793,000 oo qof oo dunida ku nool inay sanadkii qudha iska jiraan, dadkaasina intooda badan ay rag yihiin. Dalka Britain ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay dadka u badan dadka istila ay ku yar yihiin. Hase yeeshee, istiilku ayaa wuxuu bani aadamka ku yahay halis la mid ah ta cudurrada dilaaga ah ee caalamka u ka qayliyay. Dalka Australia, dumarka istila marka ragga la barbar dhigo waxay ka sarreeyaan 3 jibaar. Ruushka iyo Argentina waxay iyaguna ragga ka sarreeyaan dumarka istila 4 jibaar. Dalka Kenya laftiisa istiilka ayaa ku soo badanaya, wuxuu soo noqday wax aad looga murugoodo. Dalka Ethiopia, inkastoo tirada rasmiga aan laga hayn, waxaa la sheegayaa in wararka la xiriira dilka ama istiilka in intooda badan ay yihiin rag. Dalka Mareykanka oo dhibta istiilka ugu badan ka dhacdo ayaa wuxuu aasaasay sanduuq ka hortaga istiilka. Ku-xigeenka madaxa sanduuqa Jill Haack wuxuu yiri, laga bilaabo markii aan bilownay inaan xogtan istiilka ururino, mar waliba waxaanu farqi aad u weyn wuxuu u dhexeeyaa tirada ragga iyo dumarka istila. Arrintan dadka istila ama qudha iska jira waxay noqotay mid wadamo badan aad looga hadalhayo. Sababaha ugu muhiimsan ee istiilka in la daraasiyo waxaa ku gudboon caqabado badan oo tiro badan. Tirada ragga iyo dumarka ee dunida ku sii kala fogaanaysa waxay ka mid tahay waxyaabaha murugada sii badinaya. Haddaba, maxay raggu u yihiin kuwa u badan istila? Dumarku waxay leeyihiin dabeecado wax kasta oo la soo dirsay inay eheladooda u sheegaan iyo asxaabtooda ay la wadaagaan, halka ay raggu wixii la soo dirsay ay liqaan oo ay caloosha ku haystaan. Wadamada horumaray iyo kuwa soo koraya intooda badan waalidiintu waxay ubadkooda ragga ah ku soo ababiyeen inay adkaan muujiyaan, dhib kasta oo yimaadana ay dusha u ritaan. Ninka ragga ah ma ooyo ayay ku soo barbaariyeen, oo ninka ragga ah dareenkiisa soo bandhiga ay tahay daciifnimo. Raggu waxay ku soo barbaareen inay dareenkooda qarsadaan mar walba. Hooyooyinka gabdhahooda waxa ay dareemayaan iyo waxa kastoo ay la soo dirsaan way kala sheekaystaan. Dumarka waxaa laga rabaa inay mar walba dareenkooda muujiyaan. Isticmaalka daroogada iyo cabidda khamriga ayaa ka mid ah meelaha ay raggu ku raadsadaan inay dhibka haysta kaga nafisaan ama kaga dhuntaan. Ragga arrimahaas sida joogtada u sameeya waxay tilmaam u yihiin inay haystaan dhibaatooyinka noocaas oo kale la mid ah ilaa ay marka dambe istilaan. Sidoo kale waxaa ka mid ah arrimaha xiriirka shaqada iyo qoyska. Inay istilaan ayaa saameyn ku yeesha iyaguna. Haddaba, xalku muxuu yahay ee laga hortagi karo istiilka? Dhibaatada istiilka oo ah dhibaato bulsho aad u weyn, in wixii xal u noqon kara si fudud loo sheego way adag tahay. Xalka u wanaagsan waa inuu qofku xidhiidho badan sameeyo, dareenkiisana uu dadka isku dhow yihiin oo uu la wadaago, ama kuwa uu ku kalsoon yahay. Dadka oo la dhiirigeliyo wixii noloshooda la soo dirsa ay jiraan cid uu la wadaago. Ragga dareenkooda in ay soo bandhigaan wixii caloosha ku jiraan bannaankana soo dhigaan. Sidoo kale, arrinta kale ee lagu xalin karo waa in ragga istilay loo sheego in geeridiisa ay dhibayso ama ay saameyn ku yeelanayso qoyskiisa iyo saaxiibadii. Haddaba, sanad walba 10 Sebtembar waxaa loo dabaaldegaa maalinta ka hortagga istiilka. waxaa la sheegay caalamka dadka istila inay tahay da'da u dhaxaysa 15 jir ilaa 29 jir ay yihiin dadka u badan istila.
halka daraasad soo baxday dhowaanahan ay sheegayso in Soomaaliya ay ku soo badanayaan istilka, weliba khaasatan hablaha u dhaxeeya da'doodu 30 jirada ilaa 20 jirada ay tahay da'da u badan ee istisha. fadlan muuqaalkan hadduu ku qanciyo subscribe garee, like saar. mahadsantahay dhammaantiin.